maanta waxaan ka hadlaynaa mas'ala luqda xaq ay gabadha walaasha ay kugu leedahay maxaa yeelay markasta waxaa soo laabta su'aalooyin cajiib ah inta badan haddaan rag nahay xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey oo gabadha walaasha kula dhalatay ay kugu leedahay waxaa laga yaabaa inaad ogsooneyn inaan naftiina xasuusiyo isla markaasna aan ka dibo dadka xuquuqda gabdhaha la dhashay ku tumanaya sida la socotaan walaalaha waxay ka mid yihiin raximka waxyaabaha in la xiriiriyo waajibka ay tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaaftay haddana gabadha markay tahay waa gabar daciif ah mar kasta waxay u baahan tahay sanad iyo wixii tiirsato saas daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaha xaqooda meel buu saaray markay aabbahood joogana aabbahood ayaa nafaqadooda waajib ku tahay haddii uu aabbaha geeriyoodana walaalaha ayay ku soo guuraysaa gabadha walaalkeeda nafaqadeeda laga rabaa halkaas waxaa ka garan kartaa marka gabadhii inay mas'uuliyaddeeda ninka walaalka uu mas'uuliyad wax ka leeyahay taasaa keenaysa marka inuu gabadha ninka mar kasta uu xasuusto gabadha walaashiisa gabdhaha nacam gabdhaha waa calool jilcan yihiin waa baari weeye walaalahood say u jecel yihiin horta ragga u jecel yihiin wiilasha gabdhaha walaalahood saas u jecel yihiin maxaa dhahay gabadha waxaa laga yaabaa inay wax kaa soo korisay hooyada adigu da inay ku dhashaa laga yaabaa oo adiga iyada ku soo korisay ku soo caano siisay ugu soo dhigtood maanta waxaa laga yaabaa walaashaa meesha ku dambaysay ugu hooyada kaliya aabbaha iyo waalidka hooyada iyo aabbaha walaashaa ku xigto maxaa yeele waa qof daciifa in loo naxariisto la doonayo waxay yidhahaan culammada gabdhaha ilaahay subxaana wa tacaala naxariistoo ilaahay ku abuuray qaluubtooda oo la yidhi mar kasta mas-uulka halaga naqdo hala ilaaliyo hala garab istaago waxa weeye caatifo ilaahay ku abuuray weeye walaashaasay kuu jeceshaha adii muu jeclin walidaalika nebi muuse waxaa leeyihi calayhi salaam waxa badbaadiyey ilaahay subxaana wa tacaala markuu qur-aanka noogu sheekeynayo waxyaabaha badbaadiyey gabadha walaashiisa ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka noogu sheegay aayadaha qur-aanka oo noogu sheegay muxuu soo u badbaadiyey saad garanaysaa fircoon waxaa leeyihi markuu wiil kasta u dilayey nebi muuse markii sanduuqa lagu riday oo ilaahay amray inay sanduuqa ku rido gabadha walaashiisa waa jooga weyday hooyadeeda waxay u tiri waqaala liukhtihi waxay ku tiri walaashiisa muuse walaashiisa waxay ku tiri hooyadaa ku leeyahay usii raacraacay tiri meesha gabadhi waxaa la yidhi sanduuqii daba socotay ilaa guriga fircoon uu ka tegey guriga fircoon cid kasta ma gasha nafteeda dan u hortaa la yidhi waa gashay ay marka dambe ay tiri manii sheegaa qof nin ka faala qaadayso idan sababta hooyadiis muuse ugu soo noqday gabar ay ahayd walidaalika ilaahi subxana wa tacaala oo qur-aanka noogu sheegay in gabadhaas tamshi ukhtuka nabiga gabadhaas qur-aanka lagu sheegay iyadoo ukhti la dhahay magaca ukhti la siinay waxaa ula jeedaa saas waxaa soo naqnaqatay inta badan dad su'aalo weydiinaya dhahay walaashay ma siin karaa zakada waa wax cajiib wey walaashaa maxaa inay sanad baaha inaad dimbaadu ogtaa haddii walaashaa ay faqiir tahay masruufkeeda adigu kugu waajibay ilahay ku saaray ninka ragga ah gabdhaha waa aragteen waa dadaalaan waxay leedahay nin inay guursanaa laga yaabaa walaalkeed ayay maanta dhan daba socotaa walidaalika waqtigii xajaaj ibnu yuusuf ayaa waxaa la yidhi gabar uu qabsaday wuxuu qabtay walaalkeed iyo wiilkeeda iyo ninkeeda qafaal ku qabtay markaas wuxuu ku yidhi kala dooro midaan kuu daynaa mid dooro waxay tidhi nin waa la heli karaa tiri wiilna waa la dhali karaa laakiin walaal lama helaya tiri walaalkay ii dey markaas wuxuu ku yidhi kulligiina ii dey wiil xajaaj ibnu yuusuf sidii kutuba taariikhda ku qoran macnaha gabadha waa laga yaabaa sacrifice inuu samayso waa arkaysaa gabdho badan oo yurub hadda soo aaday aa arkaysaa inay shaqayso maxaa dhacay guursanin ee guurkeeda dib u naqatay oo guurka ka daahay ee inta ilaahay ilma sii lahaa maxay sacrifice-kaas dhan u samaysay iyo dhibkaas waxay u samaysay walaalkeeda yarta inay soo dhoofiso kalow ragga mowqafkaas idinka abaalka cala alaqal abaalkaas ma gudna annaga hadda aragnahay balse xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey ayaa raba halkaa inaan ka sheego arag gabadha faa'iidada leedahay shareecada islaamka xuquuqda uu kugu waajibiyey inaad ogaato xadiiska abi saciid alqudri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man kaana lahu ثلاث banaatin ninkii saddex gabar u dhalata oo wuxuu yidhi ثلاث akhawaatin wa fii riwaayatin bintaani ukhtaani ninkay laba gabar u dhalata iyo laba gabadha walaalihiisa u dhalasha oo fa axsana suxbatuhunna xiriirkooda wanaajiya walaasha xiriirkeed ma wanaajisaa mas carruurtaada keliya ka fikirtaa waddankay jirtaa waxaa laga yaabaa inay wuxuu leeyahay xaaladdeeda aad ogeyn wuxuu leeyahy wattaqa fiina falahu aljanna idan walaashay aniga aan marsuufkeeda iyo xaaladdeeda aan la socdo nebigu wuxuu ii ballan qaaday janno inaan ku galayo sidii gabdhahaygoo kale inay tahay mas-uuliyaddaasa lee saaray xadiidka kale wuxuu leey nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayadda ahayd wuxuu leeyahay ثلاث akhawaatin oo ثلاث banaatin ukhtaani hadday tahay wuxuu yihi falahu aljanna waa laftigeeda can umu salama radia allahu canha xadiiskan dhegayso
laga yaabaa walaasha aan weligaa telefoon u dirin aawicin xaaladeeda la socdo inaan qabo ilmo badan haysataa yuruba ku nooshahay walaasha xuquuqdeeda ma siisid xataa telefoon uma dirtid xataa soomaha nabiguna wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam haddaad walaasha ka war haydid jannada ayaa ku galaysaa sidii gabadhaada oo kale walaasha carruurteeda ma ogid masruuf ma siisid bal waxaa laga yaabaa walaasha ina xaaskaaga ugu eexatid laga yaabaa ma dhahay xaaska ha laga eexdo laftigeeda cadaalo u far laakiin waxaa laga yaabaa gabadha walaasha gurigaaga inay iimaan karin maxaa dhacay islaantaada ka baqaysaa xuquuqda maanta gurigaaga inay walaashaas u gal weydo ee carruurteeda ay eedid u tahay marka maqaalibta inaan diidan maxaa dhacay waxaan ilaawna xuquuqda ilaahay na saaray xadiisku musalama dhageyso wuxuu leeyahay radiyallahu anha sami'tu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga naxariis korkiisa ahaatee wuxuu yiri yaquulu wuxuu yiri man anfaqa ala bintayn waqtayn ninka masruuf u qora laba gabar oo dhalay ama laba gabar oo la dhashay taas maxaa gabadha badan ku dayacan yihiin Soomaaliya maxay ku dayacan Yurubtan ku dayacan yihiin wuxuu leeyahay nabiga alayhi salaatu wasalaam oo dawata qarba ah wuxuu yiri hadduu ku dadaalo kaanata lahu satratan min an-naar naartik xijaabayan qiyaamaha gabadha walaasha masruuf u qorto la rabay inaa masruufteeda gaajata waxa leedahay sanadka markii gaar zakada muslimka billahi alayhi xuquuqda wala waranka waxay leedahay gabadha xuquuqda kugu leedahay xaqada difaac inaad difaacdid gabadha inaad difaacdid oo xuquuqdeeda difaacdid oo rag badan ayaa waxa jir maanta gabadha walaasha ay qabaan ay ku ciyaarayaan adigina ma ku iimaan karto maxaa dhacay adiga ma kaaga cabsanayo islaamka wuxuu qabaa gabadha walaalka oo la qabo Soomaalida maamahdeeda markii laga soo tago ina ninkaas uu ku ixtiraamo uu yiraahdo gabadhaas nin baa isu siiyay walaalkeeda joogo laakiin gabar walaasheed uu og yahay ninka qabay inuu walaasheed soo raacdaynayo oo dhahay war ninkaaga u tag ana hay iimaan kuma cisho karo meelan ku dhahayo ninka uu dayacay gabdhaha qaarkood ma furna walaalna waa leeyihiin xuquuqda isma'u hada xadiis rawaa imaam bukhari sawir ma'qal ibn yasar radiyallahu anhu wuxuu leeyahay nin baa yimid zawajtu wuxuu leeyahay ukhtan li min rajul nin baa walaashii ku darugo fadalaqaha waa soo furay hadduu ku ixtiraamayo ninka walaasha qabo adeeyna kugu xirantahay markuu ka arko inaa walaasha garab taagantaa kugu ixtiraama laakiin walaala ah soo wiceynin ka garab haynin asagan waa cabidinaya gabadha ugu dhalatay xuquuqdeedna adaal ilaahay ku weydiinaya bixi waxa dhacay soo cararta malaha hadduu ogaalahay inuu walaal garab taagan gabadhaas saas ma sameeyay ninka saas daraadeed macqal ibn xuurin baa gabar u dhisay aan ku dar waa soo furay xataa meelaha tashanul ma ku furnay markay ciidada dhameysatay ayuu wadan yimid wuxuu gabadha mar labaad isii ilaa markay ciidada dhameysatay rajactu wax malaha inuu doonto waliga doonto وكاس عوري الله والله زوجتك وانكو بوري وفرشتك وانكو فراش برجيل وكرمتك وانكو كرامي ولا شيء يكو آمني وصوفرتك والله إنك سيني يمكن نبي يسقطك عليه الصلاة والسلام نبي كم عيداني لكن إن كان هل وحبا لو إيدي ولالك حي قبل أيوة نك واربت نك إذا نكون نقط قبل ولا لها قار وحاجة أيجنا نن إنك إسجعل oo israba inay isku laabtaan wuxuu leeyahay ninkaas mar uu xumeeyay aniga wax ii sameeyay ma ku naqan kartid ma arki karo diinta ma qabto haddii walaasha ay raali ka tahay ninkan ay ku keensatay ay ku tiri ana raali ka xaq uma lidna u diidin walidalika aayad quraan ku soo degtay macqal ibn yasaar markuu saayiri ay ninka gabadha u diiday ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu aayad quraan ku soo diray fala ta'dhuluhunna an yakahna azwajuhunna war gabdhaha walaalihiina haddii ninkooda rabaa inay ku naqdaan hada u diidina leeyahay nabiga uu yeeray aayada soo degtay macqal ibn yasaar markaasuu dhaha الآن يا رسول الله هذا أنقله لكن نبي كم عنانا معقل ابن يسار ما ده محنك وجديد حياة جرب كلها لكن ولا شيء سانك لا صفة عرفت إن المهد ولا عرفت إن كذا مركز ولذلك ولا لو حجر قبل ولا شيء لقوا جرس لايه وده نكاس إنه مانع حمي نكاس وحي سمي محاكم حمي قبل ولا شهادات أموري عضلي إله القرآن كوادي ولي العاضد شرع الإسلام كفقه وحقبة هذا نك أباه ده حتى قبل يصيروا جوري ربن أو سبب أو شيء أسوي جوا على مهرنا الصغ ولايد ولا قاضي يا سودان كقاضي تضحينا وسمي واجب موتا ولا شيء نفترض قلت راح هذا إنك هرتد ولا شيء درادل اسمه حديث جابر بن عبد الله أبي سعد قال قولت عبد الله وحكى كتجي على الله جابر سجال قبل ولا لا سجال قبل ولا لا أها وسوى برباريا وحوشي الجبر وجورس نينكو حوجعلي نفتيسة إنه جبر ير أو بكرة وأسوق بالله وجعلها باب جورسدو يري مركو جورسد نبيغا او يرمان wuxuu yiri maxaa guursatay markaas uu yiri gabar islaam weyn garooba guursad islaam garooban guursad markaas uu hal tazawajta wuxuu yiri bintan tulaaciba maxaa gabar urooshayso bikra ah oo asla cayaartaan oo isku dhaqan barataan nabiga markaas uu jawaab wuxuu rasuulka allah
aabbahay wuxuu yidhi markuu geeriyo 9 gabdho walaal igu tahay hadda gabar ayagoo kala da'dooda u keeno aan guurso waxa laga yaabaa inay iga dayacaan gabdhaha walaalahay saas daraadeed naftiisu garoob u guursaday si walaalihiis gabdhaha u ilaaliyo nabiguna waa ku amaaray arrintaas khayran uu yidhi laka khayran uu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam gabar maal dhalatay nabiga siladeeda gabadha waxaa la rabaa inaa xariirisid aad darajaysid markay telefoonka ku soo dhigto walaashay ay soo wacday adiga inaa wacdid waa gurigaaga markay timaad inaa qaadid maxaa dhaa walaashaa nabiga calayhi salaam gabdhaha walaal lama dhalan laakiin waxaa jira gabdha ay naas la nuuginaa jiray waxaa dhihi sacdii dadkii nuujin jirtay sooma shaymaa bint alxaarisa nabiga la nuugtay nabiga ma ogso dagaalkii oo bani sacad markii la galay alla soo qabta qafaash dadka la qafaashaal ee gashay shaymaa waa la soo qafaalay markaas markay nabiga aragtay wuxuu ku tiri yaa rasuulullaahi inni ukhtaka min ar-radaa'a rasuulka oo naas isla nuugtay tiri walaasha ay aniga naaska isla nuugteen nabiga waa yaabay gabadhii dadka la soo qafaasho oo maxaabiista ahaa gabar walaashiisa ku jirtay nabiga calayhi markaas wuxuu yiri wama calaamatik maxay taa uu yiri calaamada ayna walaalka ah maxaa ku cadeynaysaa markaas waxay tiri dhabarkaaga fiiri tiri qaniinshada anagoo yar oo isla cayaarayno naas markay isla nuugayeen dhabarka ka qaniina kugu yeelay tiri nabiga waxa xasuusay qaniinadii arkay nabiga waa isceli waayay markuu ugu horeysay wuxuu qabtay go'iisoo firaash wuxuu dhulka u firaashay walaashiisa wuxuu yiri kaalay horta dhulka ka kacuur go'ayga ku firay markaasuu offer siiyey wuxuu u bandhigay adigina walaasha maxaa siisaa walaasha ninkii qabaa dayaca laga yaaba mana qabno mana marman uu maqantin walaasha faqiiray ku tahay dadka kala marsuufa adigina inta aad ruuftaada ku marsuufataa ma siisid wax ma siisid waajibka ilaahay ku saaray miyaad ogsooneen nabiga markuu u firaash gabadhii uu u yeeray shayma wuxuu ku yiri khiyaarka qaado laba arin qaado wuxuu yiri inaad nala joogtid in ahbabti fa indi hadda jecesh wuxuu yiri maanta aniga gurigeyga ana ila joogaysa walaashiis waa isnaas nuugay ma walaashiis caloosh iska soo baxeen ma wali wuxuu yiri hadda jeceshayna ani agteeda joogaysa kale hadda rabtidna wuxuu yiri wa in ahbabti amta'tuki wa tarji ila qomkaagu dhaqana rawaati kale waxay ahayd wuxuu ku yiri sani tuqda waxa arta weydiisay walaashayda wuxuu leeyahay washfici qofka arta u shafaac hebel haleeday walaasha hadii ku tiraahdo waxaasan kaaga baahanaa ma dhileed kan aanu ii xireen ma dhileed nabigu wuxuu yiri qofka arta deyso oo dadka la soo qafaale waxay tir rasuulka allah aniga walaalkayo waxaan rabaa tir ehelkayga ku noqon xaliil wiil walaam adoon iyo gabar kala jaariyad adoomadu si wuxuu kan sahay ka dhigay uu ku si gabadha miiraasay ku leedahay dhaxalkeeda raga dhaco gabdhaha maanta markay nala soo waco waxay leeyihiin gabdhaha aniga waa ka talaalusin wiilasha ugu tanaasulay maxay ugu tanaasulay xaqeed maxaa wiilku xor waa inuu dhaco xaqeed inuu dhaco raba نتقي الله في أخواتنا أخواني